quraanka xifdigiisa hore uu fududi hayntiisa adag qofkii 2 sano lagu xifdisiyay 2 sano gudahood buu ilaabaya hadii aan dib isaga xilqaamin waalidku tacab khasaaraya hadda 2 sanadood subax kasta ilmahan soo kicinaysay oo soo dadaalayay oo macallin waqti ku bixinayay oo haddana 2 sano gudahood wixii bay ku baaba'aan waabu qaybay laakiin ma joogayso umamka dunida ku noole wala waliba qaab bay leedahay quraanka u xejiso midaal dadka shanaaqidada la yiraahdo Mauritania quraanka qaybistiisa waxa ay isticmaalaan nidaam ah aayad kasta 200 jeer baa la akhriyaa يعني 200 jeer markaad akhrido waxay noqonaysaa inaad sida faatixada u qaybto faatixada dadku ma ilaabo Soomaa oo fiiri faatixadii bay iga gadmatay ma يعني akhriskeedu ku badin waxaynu ilaagoyn waxa weeyaan akhriskeedu ku badin 200 jeer bay akhriyaan 10 kasta oo u dhiganaya ardaygu marka waa inuu 200 jeer akhriyaa taasi waxay fududeysay inay quraanka xijin karaan madrasadii Soomaaliyeed hore quraanka xifdi jirtayna dhaqan bay lahayd dhaqan la yiraahdo subac bay lahayd oo ah 7 casho kasta in quraanka la dhameeyo ardaygu maalin kasta 5 jis oo dhow oo subac 4 jis iyo badh ugu yaraan oo ka qayb galo marka uu weynaadana dhaqankii culimadii Soomaaliyeed ee quraanka ay soo gaadhnay waxay ahayd ninka sheekha Soomaaliyeed subac ama 4 jis iyo badh baa u ahaa caadadiisa maalin kasta inuu akhriyo 4 jis iyo badh inuu maalin kasta akhriyo hadduu taala laazimo oo inagu tiisharaqdada ma hayne teeni aynu ku noqono dhaqanka iyo hidaaynu lahayna lagu hayay quraanka hadii la laazimo quraanka waa la haynaya hadii kale se waxay u badnaan doontaa inaynu xafladda ku farxnay 2 sano 3 sano kadibna 2 in 5 inoo meelaha imaam ka noqdaan quraanka ay ka hayaan inta kale oo qalbo ka waxaan waalidka kula dardaarmay iyo macallimiintaba inaan xifdiga qoro lagu daynay in la hayo subac caadi oo dadkii xufaada ay ka qayb galaan oo qofku ku hayn karo quraanku inuu jiro ka labaad ragga quraanka kamida waxay dhaadaan kitaabka quraanka waa kitaabka loogu akhris baday isla markaa waxay dhaadaan waa kitaabka loogu aqoon daray inuu quraanku noqdo waxaynu ugu akhriska badnayn haddana uu noqdo waxaynu ugu aqoonta daranay oo ayaan darayaduna waxaan kale ku dhiirinayaa waalidka iyo macallimiinta iyo bulshaduba inay ku dadaalaan sidii ay u sugi lahaayeen in la fahmo quraanka waxa ku jira iyo risaalada oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo soo diray waqtiga oo cidhiidhiya daraadeed waxaan ku soo koobayaa intaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala haydan ka abarmariyo haweenkana waxaan